Soo dhawaada asxaabi ku soo dhawaada janalkii Dhalaan Tube. Maanta waxaa noo wada sheekadii la magac baxday Ubaxii Badbaadada ee daawasho wacan. Waxaa jirtay tuulo yar, waxaana ku noolaa gabar la dhihi jiray Alice. Alice waxa ay la nooleed hooyadeed. Aabaheed waxa uu dhintay iyadoo yar. Kadib Alice hooyadeed ayaa soo korisay, waxayna ahayd mid u shaqaysa shaqooyinka dhibka badan si ay u soo helaan quutulyoonkooda. Alice hooyadeed ayaa shaqada oo ku adag darteed aad u xanuunsatay, waxa ayna gaartay in ay ku soo aroorsato sariirteedii. Alice ayaa aad uga walwalsanayd hooyadeed, waxaana imaaday dhakhtar walba, balse wax way ka qaban waayeen xaaladda ay ku sugan tahay Alice hooyadeed. Alice ayaa ahayd mid aad u murugaysan, waxaana ay la tashatay dadka tuulada. Waxa ayna ku dhaheen waa inaad baxdaa si aad u soo goobto dhakhtar daaweeye hooyada. Waxa uu imaaday gudoomiyihii tuulada, waxa uuna u sheegay inay ka tagto tuuladan ayna ku soo wareegto adduunka si ay u soo hesho ubaxa badbaadada. Waxa uuna ku yaalaa togoga gadaashooda. Alice ayaa u mahadcelisay tuulada gudoomiyaheedii, waayna baxday si ay u doonto ubaxii. Waxay soo gaartay Alice keentay, kadib waxa ay bilowday inay aad u ordo si ay ugu soo dhaqsato hooyadeed. Si ay u soo socotay waxa ay imaaday geeda dhirtoodii dhammaatay, waxaana ka jiray meeshaas abaar aad u badan, ilaa ay ka maqasho cod aad u weyn oo ka nixiyay Alice. Codkaas waxaa lahaa ruuxdii geedaha, waxa uuna bilaabay inuu Alice ku qayliyo, waxa uuna ku eedeynayay inay abaartan sabab u tahay bini'aadamka Alice oo kale ah. Wuxuuna u sheegay inay ka jareen meesha ay biyaha ka imaan lahaayeen. Kadib waxa uu ku dhahay waa inaan adigu ku dilaa si aan uga aargoosto bini'aadamka. Kadib Alice ayaa isku dayday inay ka ordo, balse waxaa hal mar soo gaaray geedkii xididadeeda, waxayna bilaabeen inay kor u soo qaadaan. Ninkii ayaa ugu dhaartay inuu Alice dili doono. Kadib Alice ayaa u ballan qaaday inay badbaadin doonto geedaha, waxayna u sheegtay in ay biyahaas ayada u soo furi doonto. Waxa uu ku dhahay haddii aad biyahaas soo furi weydo waan ku dili doonaa. Kadib ayuu u dhaartay. Markii ay u ballan qaaday ayuu soo fasaxay Alice ninkii geedka ahaa. Kadib Alice waxay soo gaartay meeshii ay biyaha ka sharnaayeen, waxayna bilowday inay dhagaxyadii ka qaadqaado, balse way awoodi weysay. Kadib waxay u soo qaadatay ul, waxayna bilowday inay ku leexiso ushaas, waxayna adeegsatay awooddeedii oo dhan ilaa ay dhagaxii ay ka leexisay meeshii, waxaana bilowday inay biyihii aad u soo burqadaan. Kadib Alice ayaa biyihii ka kormartay, waxayna ku sigatay inay dhimato, balse ruuxdii geedka ayaa ka soo badbaadisay Alice, waxayna u soo qaaday kor. Kadib ninkii ayaa bilaabay inuu u mahadceliyo Alice, waxayna dhirtii ku soo noqotay mid barwaaqaysan. Waxa uuna ku dhahay halkeed u socotaa. Waxay u sheegtay inay u socoto togoga gadaashooda, waxaana u sheegay inay tahay meeshaas meel halis badan. Kadib uu ku dhahay waxaan ku siin doonaa hadiyad aad qaali u ah. Waxa uu siiyay warqad dahabi ah. Kadib waxa uu tilmaamay albaab ay ka baxdo si ay u tagto togoga, balse waxaa ka hor imaaday dab aad u hursan. Waxayna isku dayday inay ka soo ordo, balse waxay soo xasuusatay xaaladda ay ku sugnayd hooyadeed. Waxa ayna bilowday Alice inay dabka xoog ku dhex marto iyada oo gubanayso. Markii ay ku fikirtay inay isdhiibto waxay soo xasuusanaysay hooyadeed. Kadibna meesha ayay kasii wadaysay orodkeedii ilaa ay ka soo dhex baxdo meeshii gubanaysay, waxayna soo imaaday meeshii. Kadib waxaa soo baxay caleentii, waxayna bilowday inay Alice korkeeda dhan u fiicnaado. Markii ay Alice biskootay ayay aad u faraxday. Kadib waxay bilowday inay sii wadato socodkeedii ilaa ay ka imaaday meeshii ay taallay ubaxii badbaadada. Markii ay isdhahday ubaxa soo qaada ayaa waxaa ka soo horbaxday 3 jinniyadood oo 2 naag ay ahaayeen midna uu nin ahaa. Kadib waxay ku dhaheen halkeed u socotaa, joogso, yaa tahay iskuna kay sheeg. Kadib Alice ayaa u sheegtay inay tahay gabar aan wax dhibaato ah wadanin, waxayna dhahday waxaan rabaa inaan ubaxa badbaadada u qaado hooyaday si ay u soo caafimaado. Kadib Alice ayaa jinniyadii waxay u sheegeen inay ubaxa ay qaadan karto, waayo waxay tahay qof aad u fiican ayada. Laakiin waxa ay ku dhaheen waa inaad mid ogaataa, qayb walba oo ka mid ah ubaxan baalashiisa waxa uu hooyadaa siinayaa 1 sano si ay u sii noolaato. Waxayna ku dhahday 5tan xabo waxay ka dhigan tahay inay hooyaday noolaan doonto 5 sano. Alex ayaa aad u murugootay,
waxa ayna weydiisatay inuu jiro xal kale. Jinniyinkii ayaa u sheegay inuu jiro xal kale oo ah inay Alex cumrigeeda u hibayso hooyadeed si ay ayada u noolaato cimri dheer. Wuxuuna ku dhahay haddii aad ogoshahay waa inaad ubaxa jartaa qaybihiisa aad u kala jartaa laba qaybood baal walba oo ka mid ah. Alex ayaa si degdeg u imaaday ayadoona ka fikirin. Waxa ay bilowday ubaxii inay kala jarjarto. Markay xabad jartaba Alex ayaa aad u sii weynaanaysay, waxa ayna noqonaysay duq. Jinniyinkii ayaa ka yaabay Alex go'aankeeda iyo sida hooyadeed u jeceshahay. Markii ay dhammaysay jarjaritaanka ubaxyada, Alex ayaa waxay noqotay islaan aad u weyn. Waxay soo qaaday ubaxii si ay ugu keento hooyadeed. Alex ayaa u mahadcelisay jinniyooyinkii wayna ka soo baxday. Waxa ay soo socoto Alex waddada ayaa socodkeeda dhib ku ahaa. Kadib waxa ay imaaday gurigii hooyadeed. Markii ay gurigii soo gaartay ayaa waxay maqashay hooyadeed qufaceeda. Way u soo gashay balse hooyadeed way garan weysay. Markii ay Alex dhigtay ubaxii sariirta korkeeda ayaa hooyadeed fiicnaatay, waxayna noqotay mid fiican, balse Alex ayaa ku bilowday xanuunkii. Kadib ubaxii ayaa kor u kacay waxaana isku beddelay jinniyad. Kadib Alex iyo hooyadeed ayaa jinniyadii waxay u sheegtay inay tahay midaan imtixaan Alex loo waday, wayna ku guuleysatay imtixaankii. Waxayna ku dhahday waxaa tahay gabar aad hooyadeed u jecel, waxaan kuu hayaa hadiyad. Kadib jinniyadii ayaa bilowday inay Alex u soo celiso cimrigeedii, waxa ayna noqotay gabar yar. Kadib Alex iyo hooyadeed ayaa farxad ku noolaaday. Sheekadana halkaas ayay ku dhammaatay. Fadlan subscribe noo saar.